Recording has been started. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد مقولها الله كيس كيس كل عدك الشعب الصوماليات. ساسيو حاجة كير لغو ورئيسو أقوي هذا السياسي تكرد ورق الصوماليات يركز في عالم الشغال. سو كان طول لغو صوبان بيجو نوعية كرد ورق أقوانات لغو كبشية جراد كمجتمع الصوماليات. فإذا هذا برنامج آلو فربضان أو مجتمع الصوماليات فإذا هذه الشركة بحال. كنا نشوف في عاوة حمص موضوع قوية الصوماليات وكنا نقول في إنجليزيا محمود إبراهيم. محمود إبراهيم كنت له جراحة لاينتيز. وكانوا حلقات جروب تقولوا كل جراحة لاينتيز في كام. كانوا حلقات جروب فيسبوك وحلقات جروب يوتيوب. واي هذا عن سويدين من بالمصطفى وهو في سبحان هذا الدولة السويدين. هيرتيج واي. هيرتيج الحياة. وأرنو حالو آسا شغال يوسف حيث هذا اتجاه السياسيين أمات ومدى الصومال إحنا نسكش قياسوا عنه لأن سويدين واكوبة يا برنامج كاسي هذا وقاد عند المو وغير وريسنا أقولياك الصومالي حاول ما تدور الموضوع ومحمود إبراهيم وهو محمود إبراهيم شو محمود إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان سلام يا دمان dadka Soomaaliyeed oo garadka ku jira golaha 1960 Maxamuud Ibrahim Jaamac ku dhashay miyiga Taleex waxbarashadiisii asaasiga ah hoose ku soo qaatay dalka gudihiisa kuna soo dhameeyay secondary-ga Laascaanood 85 national service ama gurmadka wixii loo jiray soo maray dabadeedna kulliyadda waxbarashada ee la foole soo galay 87 isagoo qalinjabintiisii ku dhex jirana qabti ay ku dhacday dabadeed intaa wixii ka dambeeyay qurbaha un baan u soo baxay meelo kala gedisan baan joogay akhirkii waxaan ku dambeeyay magaalada London ee UK halkan waxbarashadii baan dib uga sii bilaabay runtii anoo dib ugu noqday jaamacad baan halkan ka bilaabay oo ka galay waxaan ku bilaabay waxa ay yiraahdaan certificate of higher education cilmigan la yiraahdo horumarinta bulshada dabadeedna waxaan ku xijiyay bachelor of science oo baan sameeyay waxa la yiraahdo siyaasadda bulshada iyo horumarinta community development and public policy. dabadeedna horaan u sii socday waxaan ku xijiyay Master of Science of International Development waxaan ku noolahay London waxaan ahay aabe xoogsada arrimaha Soomaaliya isha ku haya oo falanqeeya intii karaankiisa iyo awoodiisa lana socda intaas ay ku kooban tahay taariikhda محمود إبراهيم هذا يا أبو محسن قد أزوجين لحاول بدأت الشرطة على تيس بسوطة فنقولنا إن هي الهرتيج في الصومالية كأسا كنت هاي المدة على أي تسي الرئاسة الصومالية أنا حاجة كري أضغط على الله يقول نوعية كردوها أقول لك هي هذا بالمصور يسوي يقولوا أن الهرتيج المحاط هاي صورنا الأساس يجبنا له أحد سوى محي شنو heritage waxa maqalkeeda inuu ugu horeysay asaaskeeda sanadkii loo jiray 2013 waxa aasaasay oo milkiilaheeda nin aqoon-yahan Soomaaliyeed dawladana mid soo shaqeeya oo wasiiraha oo yiraahdo Cabdiraxmaan Caynte sida ay sheegaan ee ku qoran hoygooda waa hay'ad cilmi baariseed oo isu xilqaantay inay xog ururin iyo cilmi baaris ku samayso umuuraha Soomaaliya una soo bandhigto Soomaalida iyo cidii danaynaysa halkii waagii hore ay xogta laga qaadan jiray hay'adaha shisheeye waa sida ay sheegeen inay u aasaasan yihiin ama waxa ay u taagan yihiin kolleydii waxa filayaa su'aalun baa daba socda oo aad weydiinaysaa inaan ka hor dhacana ma doonayo kolley marka guud ahaan waa intaa waqtiga la aasaasay dadkan ujeedada loo aasaasay markii hore weyn
hay'ad kasta marka la aasaasay mar walba meel ay ku tiirsantahay oo dhaqaalaha ay ku fulinayso mashruucan ay fulinayso hawsha qabanayso ka soo galo ka soo ka keentaa halkee heerkii dhaqaalaha ka soo qaxay dhaqaalaheedu waxay ku tiirsan tahay in tabarucaad la siiyo oo ay mashaariicda ay samayso ay tabarucaad ku raadsato hadda shirkan ugu dambeeyay waxaa kamid ah xawaaladaha meelaha dhaqaalaha ka helaan waxaa kamid ah research institutes kale oo ma garanaysaa meelo kale ka jira waxaa kamid ah ma hubo dawladdu inay qabto laakiin dhaqaalaha ugu weyn khaasatan sanadkan ay wax ku qabanayeen sida ay iyagu sheegeen wuxuu ka soo galay sanduuqan la yidhaahdo Somali Stability Fund oo sanduuqaas oo loogu talagalay ama u taagan inuu ka shaqeeyo nabadda sidii Soomaaliya ay nabad u noqon lahayd sidii deganaansho looga heli lahaa sidii maxaa la yiraahdaa ay kor ugu soo qaadi lahaayeen awoodda iyo kartida bini'aadamka sida isugu xidhi lahaayeen ummadda Soomaaliyeed ee shacabka ah iyo dawladda oo dadku dawladnimada u aamini lahaayeen sanduuqaasi Somali Stability Fund isaga laftiisu lacagta wuxuu ka helaa deeq bixiyayaal kale oo ay ka mid yihiin wadamadan deeqda bixiya hay'adahooda deeqda bixiya iyo meelo kale sanadyo kaleba tusaale ahaan hay'adda DFID la yiraahdo ee waddanka Ingiriiska oo kale iyo hay'adaha kale ee magaranaysa wadamada Soomaaliya deeqda siiya dhaqaalaha marka sanduuqa Somali Stability Fund sida ku qoran bartooda ay leeyihiin hoygooda waxay ka shaqeeyaan Soomaaliya waxaanay fundka ku bixiyaan Soomaaliyada waliba way sii cadeeyeen inta ay ka shaqeeyaan waa Soomaaliyadan maamul goboleedyada ah oo aanay ku jirin Somaliland waa Galmudug Puntland South West State Hirshabelle Jubaland iyo Banaadir marka dhaqaalaha ugu badan sanadkan hadaynu xooga saarno halkaas ka heleen meelaha kale aan ku sheegayna waxba ka soo gala waayahay dhaxlu waxa jirta magaalada Addis Ababa muddo hadda laga joogo 2 sano waxa lagu qabtay shir iyagu balan qaabiya aqoonyahan cali ciise asii hay'adiisa ayaa qorsigaas kulliga meel isugu kiisata sabab taasi oo ururkani doodiisa ugu ballaaran ay ka doodayeen ay ahayd hortagga federaalka waxa la yiraahdo ay ahayd taasi oo Soomaalidu arkaysay markaa inay yihiin urur loogu talagalay heshiiskan bulsho ee Soomaaliyeed xataa dastuurka ku qorteen ee federaalka ay ku talagaleen in ku kulmaan oo isugu yimaado dib ugu heshiiyaan in loo isticmaalayo sidii mujtamaca loogu nacsiin lahaa wax warbixin arrimahaas marna ma ka diyaarsay wax waraysa ma ka haysa arrimahaas heritage horta wax muhiim ah waxay leedahay aragtiyo iyo ahdaaf ay u aasaasan tahay sida ay iyagu sheegeen marka laga tago arrintan guud ee ah hay'ad cilmi baariseed oo Soomaaliyeed inay yihiin waxaa xusid mudan inay sheegtaan inay sababaha loo aasaasay iyo waxyaalaha ay qabanayaan ay kamid tahay baraarujinta ummadda Soomaaliyeed inay ku baraarujiyaan arrimaha nabadda ku dhaqanka sharciga iyo kobcinta iyo adeegsiga garaadka waxaa kamid ah waxyaalaha ay sheegtaan inay qabanayaan oo ahdaaftoda ah inay yihiin dad dhexdhexaad ah hufan ka madax bannaan iyo koox iyo dhinac saarto waxaa kamid ah waxyaalaha ay sheegtaan inay ku dhaqmaan mabaadiida ah inay u xaqsooraan dhinacyada kala gedisan fursad isku mid ahna ay siiyaan cid walba iyo inaanay cidna faquuqin cidna gaar u soo dhawaysan marka waxaa muhiim ah astaamaha noocaasa ee ay sheegteen weliba waxay kaloo ay sheegaan inay yihiin dad daahfuran oo ay ku dhaqmaan maxaa la yidhahdaa isla xisaabtan cid walbaana ay u furan tahay inay ogaan karaan meelaha ay wax ka soo galaan iyo siyaabaha wax u soo galaan iyo waxa ay ku qabtaan waxyaalaha soo gala oo ay wax daahfuran yihiin oo la arki karo runtii anigu waan baaray maan arkin xisaab daahfurnaanta iyo xisaabaha iyo waxa soo galay inay wax ku qabtaan laakiin waxay isweydiin mudan waxan ay sheeganayaan ee ay u taagan yihiin marka la eego labadii shir ugu dambeeyay sidaas ka dhawaasay
وأوتشير قبل أن أوتشير قاعد صعبة وقت على المقابل قالوا لي شيء جودة وكتشي ورانا يستا فكر كي حبار صناعية اللي بيرد تقدر لك إن مصنعي الصومالية يقول يا ضاع في قيد كلام احتياطي وفكر كان يكسر أواي كان جدي كرواي بل شيء حلو لو وريق دلك التبوت لما دي السنة قدم بيه دلك التبوت سنة في هراء هي سنة كم لما دابا محل عسلمدد فرابضان يولي الدولة دقاقة إلا روزان كي دلك ومشي وسيرة الدولة يغرق برلمان له هي آل العسل تاسي أو ضد قارئ آل بالحمو قريب على سوبر يسيبلاتكم لو سنية وقار أقوغوني سنان اللان تدخل إلى هذه إيشات تقني الصومالي خبشان أنا ما شاكت إن أوركا فانقايا أنا مكملة هاي دولك أي إتصالات الله مصرك أنا ضد حجرة شركة أورجي يكم ضمن ما سمع لقد عشتني كل مقنين ما كنت شوغان أرنتي هاي إن وجدوا الله أساسي إيشتان ما تهاي مكدح موقتة وحتى هاي مس أمة الصومالية أموتنا أمة الصومالية بربرنا كنا أبو رئيس على هذا ما تبصنا ولا كيف المؤسسة كذا waxay ila tahay sidaas tashkiilkii hore arrimaha federaalka ayay faragelin lagu sameeyay arrimaha federaalkuna arrimo dad badan runtii hadda ay ilaashanayaan oo sensitive bay noqdeen arrimahaasi runtii arrimo dhaqan galay ama lagu guuleystay ama iyaga kaliya ma ahayn meelo badan oo la iskaga deeyay runtii way socon weyday haddana waxa bad muddo Soomaalidu inay aad ugu baraarugtado meelihii iyo goboladii markii hore dareenka badan ka qabay ayaa bay iminka ugu xoogan iyo siyaasiyiintii markii hore dareenka hore ka qabay marka waxa runtii muuqda arrimihii federaalka arrintii hadda ka wareegto ay u wareegtay kiina sheegay labadii sano ugu dambeysay xoog la saarayay in la koolkooliyo mabda'an kala go'a siyaasadda ee Soomaalida lagu kala goynayo dadkii Soomaaliyeed ee gobolada waqooyiga Soomaaliya deganaa qayb ka mid ah ay aaminsan tahay waa sida la socotaa December-kii kal hore sanadkii ka horeeyay 2018 sida aad sheegtay waxa loo salaxay meel baa loo salaxay platform gaar ah Somaliland ay leeyihiin dooda Somaliland lagaga doodayo xisbiyadooda iyo mucaaradkooda iyo xaafidkooda iyo aqoonyahankooda ay ku soo bandhigayaan Somaliland waxa ay tahay waxay u taagan tahay dimuqraadiyadda ka jirta sida iyagu u arkaan waxa ay higsanayso marka waxa isweydiin leh heritage oo dhaqaalaha Somali Stability Fund ay ku siinayso iyada lafteeda heritage ay leedahay midnimada iyo wadajirka Soomaaliya iyo keenista iyo baanu ka shaqeynaynaa maxay tahay caashaqan ka dhex abuurmay heritage iyo Somaliland dadka fikirka aaminsan Somaliland iyagu ma isweydiiyeen Somaliland maxay tahay waa ay Somaliland inteeda Somaliland yaa mesela qabiil ba madashii mawxii ka farcamay ee ka soo baxay SNM ba ma gobol gaar ah oo tog dheer iyo waqooyi galbeed ba ma intii maxamiyadii Ingiriisku ay xoog ku gumaysan jirtay ba yani inay isweydiiyaan ba runtii loo baahnaa laakiin waxaad moodaa inay ku dhexdhaceen oo caashaq cusub uu ka dhex abuurmay inta fikirka goosashada aaminsan ee Somaliland ama maamulka Hargeysa iyo inta fikirka ku qanacsan iyo hay'adda heritage waxyaalaha cajiibka leh ee qofkii wax u fiirsada ee hadallada iyo qoraalada iyo sida magaranaysa loo faaleeyo oo wax looga magaranaysa content analysis markaad ku samaysid aksani waxyaalaha dhacaya ficilada dhacaya dadkaas ay sameynayaan saddex dhacdo kii ugu dambeeyay baan soo qaadanayaa haddaad waqtigiisii kow waxa weeyaan maalintii shirku la bilaabay maalintii xigtay waxa la wareystay ninkan mulkiilaha Cabdiraxmaan Caydinte waxa wareystay Cabdisalaan Hereri wariyahan Soomaaliyeed Cabdisalaan Hereri laba su'aalood weydiiyay baan ka soo qaadanaya ta koowaad ah shirka kan iyo maxaa la yiraahdaa muxuu yahay halku dhigiisa iyo waxa uu taagan yahay iyo su'aal kale oo ahayd Hereri weydiiyay wixii halkan ka soo baxa
yaa ka faa'iidaysanayo oo ku dhaqmayo oo loola tegaya su-aasha koowaad ee muxuu shirkan ku saabsan yahay sanadkan guud ahaan wuxuu ku bilaabay in la isu keeno dadka Soomaaliyeed oo markaa isagu ugu yeeray shantii Soomaaliyeed in la isugu keeno shantii Soomaaliyeed hadalka uu yiri oo sidiisa aan soo xiganayo wuxuu ahaa ee ajiibka ah dadka Soomaaliyeed waa sidiisa uu yiri dadka Soomaaliyeed shan meelood ayay hadda ku kala jiraan oo dawlado kala madax banaana ayay ku kala nool yihiin waa laga helayaa waa record media ku jira sabab sidiisa aan sheegada dadka Soomaaliyeed shan meelood ayay hadda ku kala nool yihiin oo dawlado kala madax banaana oo wixii Cabdiraxmaan Hayte ma garanayo shantan dawladood ee Soomaaliya ku kala nooshahay ee dawladaha kala madax banaana bal heritage baa inooga jawaabi doonta waxa ku jirta hadalkiisa oo kale oo yiri anagu halkan uma aanaan inaan Soomaali weyn u orolayno wuxuu ku sii daray hadalka sida ay hadda tahay Soomaaliya ee shanta qaybooda ayaa laga yaabaa inay noogu badiso waa hadalkiisii oo sidiisa fariintaas marka waxaad arkaysaa heritage waxa ay aaminsan tahay ayaa ka soo baxaysa iyo waxa ay u ololeynayso fariinta labaad wuxuu kaga jawaabay su'aasha labaad wuxuu kaga jawaabay ee ahayd yaa wax kan ka faa'iideysanaya soo koobay wuxuu yiri sidii uu yiri wayantanina waxa ka faa'iideysanaya Soomaalida gobolka ku nool iyo hoggaanka Soomaaliyeed ee shanta maamul ee Soomaaliyeed uu magacaabaya Djibouti NFD maamulka Soomaalida Ethiopia Soomaaliya iyo Somaliland sidaas uu yiri waxa marka la yaab leh يعني waxay ku tusaysaa inaanay wax iska yimid ahayn in loo salaxo Somaliland panel ay warkooda ku faafiyaan iyagii baa sida heritage baa u faafinaysa tii taa way ku aamini waayeen arinta kale waxa weeyaan in kale la yiraahdo executive ka meesha Cabdirashiid Xaasin la yiraahdo ayaa isagoo micnaynaya oo ka galgalanaya markii buug kaga furmay waxa ay sida tan ugu qaabeeyeen shirka hadalkiisii uu yiri baan isaga sidiisii soo xiganaya hadal kamid ah hadallo uu yiri wuxuu Somaliland ayaamahan ana amoraati ku ah waana iska degdeganaya ya marka يعني runtii la yaab bay ugu noqotay haduu Somaliland wax la jeclaado de way tahay oo amoraati iyo Hargeysa iyo waduu wanaagsan oo goba waduu wanaagsan laakiin jacaylka uu u qabo iyo caashiqa ay heritage iyo soo qabaan Somaliland iyo waxa uu sameynayaan ay u salaxayaan baanladan ay doodooda ku faafsadaan oo iyagu makafoonka u noqonayaan waxaanay dareensanayn waxa la yiri magaca ciyaar bay u diraan ciyaalku sida uu qurgooyo dibaatada iyo dhaawaca ay u geysanayaan ummadda Soomaaliyeed ee ku nool dhulka ay Somaliland sheegayso iyo deegaanada ay Somaliland ay sheeganayso runtii anaga ka jecel Hargeysa iyo Burco iyo Cabdirashiid Xaashi kuwa meesha joogada waxaanu u jecelnahay sababtaan uga hadlaynahay oo u jecelnahay inay noqdaan walaalaha iyo Soomaaliyeed oo aan laga tagin oo Soomaalinimada dhinac magaalada qabto oo dheeli kara sababta weeyaan waxa kale oo jirtay gabadh panelka kamid ah oo ka mid ahayd ergadii Somaliland iyadoo sharaxaysa caashiqa cusub ee Somaliland iyo heritage isku qabaan gabadha la yiraahdo Su'aal Harmiye waxay tiri islaamta tawaandada ku iibisa Hargeysa iyo kacaanaha iibiya iyo wasida hadalka uu tiri everybody knows heritage ciday tahay iyo waxa ay tahay marka wallahi de caashiqa jira waana sida ay u shaqeynayaan Somaliland laakiin taana waxaan oran lahaa dadka degan baran iyo buraan iyo buuhoodle iyo boocane iyo laascaanood iyo tale iyana maanta way og yihiin heritage waxa ay tahay iyana si kale og yihiin si ka gadisa sida Hargeysa looga og yahay haddaan ku soo noqdo nuxurkii kale waxa weeyaan waxay ka shaqeynayaan nimanka la yiraahdo heritage waa wax ka soo horjeeda dhammaan mabaadi'dii ay lahaayeen waan u taaganahay dhexdhexaadnimada ahaa
ahaa maxaa la yidhahdaa inaan cidna dhinac saarayn ahaa inay magaranaysaa nabad iyo isu soo dhaweyn ka shaqaynayaan waa xaalad ay abuurayaan khilaaf cusub oo soomaaliyeed waxay khatar ku yihiin midnimada soomaaliyeed waxa ay ka shaqaynayaan oo koolkoolinayaan sidii soomaali loo kala goyn lahaa iyo siday dhaawac ugu geysan lahaayeen dadka reer waqooyi ee midnimada aaminsan marka kolley waxaan filayaa taa intaasaan ku daynayaa waay adiga kale haddana u dhig maxaa diiday in ay dadka soomaaliyeed ee kale ee midnimada aaminsan hargeysa ka soo jeeda xamar ka soo jeeda gooren ka soo jeeda ceergaar ka soo jeeda waay ay ugu sameeyeen iyagu fikirkooda ah midnimada soomaaliya oo jirka soomaaliya kusoo bandhigay maxaa hortaagan u sameeyaan iyaga arrintaasi waa arrin runtii la yaab leh midnimada soomaaliya meesha bridgeka u ahay bundada u ah ee isku xidhaysaa waa gobollada sool iyo sanaag halkaasay soomaaliya iskaga xidhantaa midnimadeedu kana talantaa mid baan rabaa inaan hoosta ka xariiqo aan caddeeyo inta wiilkii ka nool yahay dadka dhulkaa degan inay soomaaliya kala go'do wax kasta oo la isku dayo ama hay-ado iyo heritage ha iskaafideen ama ma garanaysaa siyaasiyiin xamar iyo jooga hargeysa ay isu boodeen ma dhacayso ma suurtoobayso dadkaa ka suurtoobi mayso waana ku dhimanayaan waxaana diyaar yihiin wax walba inay ku sheegaan 29 sannadoodna way ku sheegayeen ummadda soomaaliyeed marka sidaa sheegtay waxay ahayd inay ka shaqeeyaan waxaan ay leeyihiin midnimaa jirto waanu aaminsannahay oo ay afka ka sheegtaan siyaasiyiin iyo shacabka dee in laga shaqeeyo waxa kan bay u baahan tahay ma aha in dadkan aaminsan kala go-a in dagaal lagu qaado oo la laayo oo la burburiyo ma aha xaasha ma istaahilaan mana mudnaa waxaa loo baahan yahay in lagu qanciyo walaaltinimo iyo soomaalinimo haddii laga waayo marka hilka noocaasa ee walaaltinimada ah inay galaan dadka koonfurta gale ee soomaaliyeed waxa nasiib darro ah inay ka shaqeeyaan qaarkood oo sida nimankan heritage wataa ay ka shaqeeyaan inay iyagii ay dhabarka ka wareemaan dadkii u dhimanayay midnimada soomaaliyeed ee ay ma garanaysaa heritage-na leedahay waanu ka shaqeynaynaa waanu faafinaynaa koonfurna laga leeyahay waa ka muqadis waa nasiib darrooyinka jira ayay ka mid tahay waxa muhiim ah somaliland wax uniform maaha oo qayb keliya ah halkaasaa rabaa inaan ku noqdo ummadda soomaalida waa inay ogaato somaliland waa laba fikir waa fikir goosasho ah iyo fikir goosashada diidan taariikhdii hore ay ku aasaasaydna somaliland markii ingiriisku dhulkaa uu gumaysanayay caburinayay cadaadinayay dadkaasi isku fikir ma ahayn oo fikir uniform kuma aanay wada qaadan oo ingiriiska kulama aanay wada shaqeyn ama kulama aanay dagaalamin reer baa ingiriiska markuu dhulka imaanayay reer sheekh saad baa muugtay habar yoonis habar awal saacad ciise muuse sidaasuu ula galayo warsan gari tiriiti gaara buu la sameeyey oo ka madax banaan ciise iyo nimanka la yidhaahdo reer boorame samaroon sidaasay ahaayeen markii loo dagaalamayay ururada iyo xisbiyada siyaasadana kala midnimada aan la wada aaminsanaada haddana waxa weeyaan kala ururaa la ahaa markii dambe ee somaliland qaar hubka qaateenna waa lagu kala gedisnaa marnaba ma aanay noqon wax la wada aaminsan yahay oo lagu wada shaqaynayay xornimadii soomaaliyeed markay dhalatayna midnimada soomaaliyeed baa dhalatay arrintaasina halkaasay ku nasakantay ama ku sakiirtay wixii la odhan jiray ingiriis waa gumaysan jiray iyo waxa dad soomaaliyeed oo la kala hayay oo gumaysi kala hayay oo is yimid bay ahaayeen waxaan uga socdaa inaan caddeeyo hal fikir kama jiro cidna cid marti uma aha cidna cid looma weydiin karo inay masiirkeeda ku hadasho aniga qof soomaali ah oo koonfur ka yimid ama urur ha ahaado ama maamul ha ahaado ama heritage ha ahaado ama qayrkood ha ahaadeen inuu soo baritaalo qof soomaaliyeed oo kale oo halkan aanu derisnahay oo geela iyagu wada daaqo oo sheeganaya degaankayga iyo dhulkayga iyo taariikhdayda oo doonaya inuu aniga identity dhalashadayda bedelo oo doonaya inuu juqraafi meesha aan ku aalay xuduuddayda aan bedelo gar iguma laha qofkaasi waxaanu ii muujiyey cadaawad aanan kala mudnayn dadka somaliland aaminsan kala go-ow xaq bay u leeyihiin meel kasta oo soomaaliya joogta inay ka doodaan iyagoo kala go-ooda wataa
وإلى تبوتي مدارين السبعين أدنسونا كما هم يوقف أحسنها لكن مقام كأيكو إيمانا يعني إيه الصومالية وفكرك أي وطن آمسا وإنت لا آمسا يجانا بلغا آمسا يكون كوبان إلى اللي مدانوية حق لك بان أنو قوليرا هذه سيسوحة هاي إلى إجراته صومالي لاند دad kan aaminsan go'itaanka waxa jira dad la mid ah la degaana oo diidan kala go'eeda oo ay ku waarti sheeganayaan oo afkooda ku hadlayaan oo degaankooda sheeganayaan xaq la mid ah bay dadkan ay lahaayeen gobolada Soomaaliya sanadii iyo awda iyo beera kale dadka jooga inay loo salaxo iyagana baana ay leeyihiin ay kaga hadlaan dooda ay qabaan oo ay ku soo bandhigaan marka runtii sidaan ay u shaqeynayso heritage وفي Soomaali nimada ku xun dadnimada ku xun damiirka qofka bini aadamka ku xun waxa weeyaan markii aanu qoraal laga sameeyo oo laga hadlay ina caynta uu ka galgashay waxaan soo xasuustay meel uu ka galgashay ma jirto oo uu leeyahay anigu masiiriyada amali hebel baale waxa jirtay hadal oran tiraahdaa Digol dikii loo jiray Francisco xukumi jiray Digol waa France na waa Digol waxaan leeyahay Cabdiraxmaan Caynte waa heritage na waa Cabdiraxmaan Caynte wanaag iyo xumaan waxa la socdana isaga ka masuula isagu meesha ku wada galanaya isaga jirta waxa kanina waxaanu kaga hadalna maaha waxa weeyaan waxaan oran lahaa oo inta ku dari lahaa intaan anta ka bixin dadka report ay soo qoreen hadda kulankii ugu dambeeyay Djibouti lagu qabtay ku soo qoreen Somaliland Soomaaliya deegaanka waxay Kenya waxay Djibouti ay sidaa xisbood la soo qoreen waa walmujed ka soo baxay taas oo cadeynaysa jawaabtii uu siiyay tiradi inay ahay waxa meeshan loogu talagalay walmujedka ku soo baxay taas yaani muujinaynin ereyga oranaya helashada ayaa maanta cidda kaliya aasaasku ah inay Soomaaliya noqoto xera cadaawad isku haysa qolaad iyo dhibaato horna ka abuuraysa ahla cidda kaliya horseedka waa maanta in Soomaaliya si kala duubuuyo lagu macay kartaa arrintaas sidaas ay u caddahay sidaas ay dhagoodo ay u caddahay waxa la yaab leh waa shanta Soomaaliyeed aan ku sheegayo shanta Soomaaliyeed aan ku noqdo shanta Soomaaliyeed waxay ahayd wax taariikh ah oo jira oo dhaba waxay ahayd shan meelood oo Soomaali gumaysi intuu ikhtiyaarka ka qaaday uu kala googooyay oo xuduud u kala dhigay shanta Soomaaliyeed waxay isbedeshay oo taariikhdaasi ay isbedeshay maalintii 1 July 1960 laba kamid ah oo gumaysigii ka madax banaanaaday ay iyagoo dad Soomaaliyeed iyagoo dawladda amaaha iyagoo dad Soomaaliyeed oo xornimadoodii ka helay ikhtiyaarkii gumaysigu ka qaaday inay isu yimaadaan oo ikhtiyaarkooda ay ku samaystaan dawlad ka horeysay 1 July 1960 oo Soomaaliyeed ma jirin fikirkan miska ah ee la iska dhaadhiciyay ee la isu sheegayo dawladda baanu keenay koonfur oo annaga dawladda baanu keenay dawlad ma aanay keenin walaalo Soomaaliyeed oo xornimadoodii helay oo xadkii laga dhex qaaday oo isu gooriyowsanaa oo isu ballansanaa oo isu yimid oo dawladnimo sidaa ugu dhawaaqay lahayd dawladda Soomaaliyeed sidaasay ku dhalatay way ku mahadsan yihiin awoowayaasheenii garashada la yimid ee gartay markii gumaysigu ka baxay inay oofiyaan ballantii iyo wacdkii Soomaali u yaalay ay isu yimaadaan iyagoo calankii wata calanka koonfur baa lagu sameeyay Hargeysa laga taagay kulliya dhowr bilood bil ka hor nimankii u doodayay xorriyadda halkan yimid ee afarta ahaa Prime Ministerkii Cigaal Allahu naxariiseeyo Ali Garaad Jaamac iyo Sheekh Ibrahim Nuur iyo Axmed Kaysihi dhawaan dhintay dhamaantood baa Allahu naxariiseeyo doodoodu waxay ahayd loo dedejiyo oo naga reebina walaalaha iyaga loo ballan qaaday July xornimada helayaan loo dedejiyo waxa iyaga madax banaanidooda loo dedejiyo sidaas walaalaha ku midoobanay marnaba ma dhicin marnaba hamigaasi ma imaan
ingiriisku markuu ka kacay waqooyi inay dowladnimo raadsadaan oo ay dowlad madax bannaan noqdaan iskumana dayin mana samaysan iyagoo sidoodii ah ayay xamar yimaadeen walaalahoodii markay xornimada heleen ay kula midoobeen marka shanta Soomaaliyeed halkaasay ku dhimatay aragkii fikirkii kuma dhimane laba ku midoobeen waxa isbedelay xaqiiqadii Soomaalida waxa timid afar xuduudood oo Soomaalidu ku kala qoqobnaatay Soomaalida horta oo lamada ah iyo Djibouti iyo NFD iyo Soomaali galbeed oo gumaysi xadad u samaystay Djibouti markay dhalatay isbedel kala dhacay dowlad kale xor ah noqotay kuwa kana ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inay marun waqti kamid ay xoroobaan oo ku soo biiraan walaalahooda kale oo sida magaalada Riyadii ay ku rumowdo marka ma jirto xaqiiq san Soomaaliyeed ay maalintaas ay isbedel dhacay 1 July marka laakiin hadda anigu la yaabi maayo ninka Hargeysa jooga ee aan san mabda kala go'itaanka ee ku doodaya waayo isagu xaq buu leeyahay ma uu meel marto ma yaaro u meel marin nasiib darrada weyn waxa weeye qof Soomaaliyeed oo kale oo halkan taagan oo u sacabtumaya oo ku garab qabanaya inuu go'o oo la go'o mid kale oo Soomaaliyeed xuquuqdooda la duujiyo dalashadooda iyo sinjigooda iyo sawircooda iyo maxaa la yiraahdaa deegaankoodaba uu la bedelo ma oran karayo kaas caado walaba kaas waa caado qof isla u fikraya waa caado ka aan ahayn reer Hargeysa ama reer Burco midnimada go'itaanka aaminsanayn kaana la doodaya ana halka u taagan وانتي صدوا وقوا يا ما وش غيثان يا وش غين سجى شرتا أنا أقول كسان علينا يقولوا أنا ولا ينفع على أيين لكن هريتيج على ود بيموت على ود صوماليات بيموت شيء على ود جانا هروقية من ولا أنسف بيموت شيء في البوت كوجنا في السبعة سقوط بحي وأنا واحد مجانا سواء عشان كان كل شيء ليه. كويس. أدرى هذا مصدر الصوماليات عاو قرآن 1960 يجوا بتدري كذا يسمى دوم خيو dadka ka dhigaysan Facebookiyada baad Quraan 1960 caawa ugu gudbinaya fikirkan heerka caawa aad soo baxda hal mid asla kaga talani lahay heerka mujtamaca Soomaaliyeed waxaan leeyahay indihiina ha furaadeen in dhibaatooyin ugu filan isbaahdin dhibaatooyin ugu filan farqan ku haysta dhibaato intii hore ha ugu filaato intii hore sidoo u kala qaad lahayn hal loo guntado oo dowladnimo ayna deeqda midnimo ayna deeqda walaaltinimo ayna deeqda wixii inaga baaqday 3 sanadood in ka badan inay naga baaqdaan ma awoodi karayno mas'uuliyadda ugu weynna waxay saaran tahay dowladda Soomaaliyeed federaalka iyo mas'uuliyiintooda xamar jooga haddaanay shaqayn inta ay nool yihiin dadkii Soomaalinimada iyo walaaltinimada iyo midnimada ogaa oo garnaqsan karayay oo wax isla qiri karayay oo soo wada dhaqmay inta ay nool yihiin haddaanay dawladani shaqayn xaqiiqdu way isbedelaysaa arrinteena meel dheer bay ku sii dhacaysaa iyo meel aan laga soo qaban karayn dawladda Soomaaliyeed mas'uuliyiinteeda waxaan leeyahay inay u guntadaan sida ummaddan u midayn lahaayeen khilaafkan gobolada ragaadiyay iyo centerka xamar iyo gobolada mas'uuliyadda waxaa leh madaxweynaha la doortay waddanka jooge inuu u dhaqaaqo shaqo kale aanu ku mashquulin ay taa ku mashquulaan hawshu waxay xanuuntaa markaan arko hawshii madaxweyne Farmaajo uu qaban lahaa iyo Prime Minister Khayre oo ahayd inay garwe ka degaan oo Kismaayo ka degaan oo Baydhabo ka degaan oo uu ka degayo ninkan la yiraahdo ninkan shaqada qurmaan u fadhiya James Swan iyo Yamamoto ay garwe ka degayaan oo isu celcelinayaan oo isu celcelinayaan kulli dalahooda un bay magaranaysaa iyana uu leeyahay ku jira shaqada waxa looga baahnaa madaxweynaha Soomaaliya inuu qabto oo ka odayeeyo iyo Prime Ministerkiisa iyo intii ku xeeran hawshu waxay kala yahaantay shalay waxaan daawaday gabadh yar oo Soomaaliyeed oo active ah oo kartida iyo waxa ku jira adeegyada sida oo la yiraahdo ina maydhanaanis magaceedii muxuu ahaa xisbigan Faysal Cali Waraabe hibaaq maydhanaanis ugu magacawday xogayaha arrimaha dibadda gabadha yari waxa kan la isu sheegay qurbaan ku kortay sida hadalkeeda ka muuqata waxa kan iyo Somaliland iyo go'itaankan iyo waxan la abuuray ayaa aad u galay yaani kartida ku jirta iyo sida ay wax khaldan ugu luminayso oo waliba iyadu rumo haysato ilaa taariikhda waxan loo soo aragay kuwa la mid ah oo xamara iyo koonfur marka ay koraan
oo aan sarag oo aan afaqoon oo mid walba cadaawad reer kale oo Soomaaliyeed cadow looga dhigay way adkaanaysaa Soomaalnimada meeshii laga doonayay marka waxaan odhan lahaa inta la nool yahay dadkii wax garanayay madaxda Soomaaliyeed oo gunta sidii dadka kale isugu keeni lahaa waqooyi iyo koonfurba arrintan heritage iyo wixii la midana waxaan leeyahay shaqada tan ummadda horta ku baraarugto waxa ay qabanayaan iyo ficilada ay sameynayaan dadka baarlamaanka khaasatan Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan kuwa ka yimid deegaanada reer waqooyiga ee midnimada aaminsan ee Sool iyo Sanaag iyo Buuhoodle iyo ereyada ha u guntadeen hay'adda tan siday ugu xisaabtami lahaayeen waxan ay dhaqaalaha ku hesho dhaqaalihii Soomaaliya loogu talagalay in lagu dejiyo lagaga dagaalamo maxaa la yiraahdaa halista iyo khataraha ku imaanaya la isugu soo dhaweeyo waxay u isticmaalaysaa heritage sida muuqata inay ku kala fogeyso Soomaali ku sii kala qoqobto cadaawad ay isu geliso xasarad cusubna ay ku abuurto baarlamaanku xaq waxay u leeyihiin inay la xisaabtamaan hay'adaha caalamiga dowladda kaliya hay'adaha caalamiga la xisaabtamaan bay leeyihiin iyo hay'adaha localkaaba iyo sida dhaqaalaha ku helaan iyo waxay ku bixiyaan gudiyada baarlamaanka baa xaq u leh inay ka hawlgalaan inay u yeelaan heritage waraystaan account-kooda iyo maxaa la yiraahdaa financial disclosure waxaan ay helaan ay soo bandhigaan waxa ay heleen meelaha ay ka heleen iyo sida ku qabteen iyo waxay ku dalbadeen xaq bay u leeyihiin laguna xisaabtamo la soo bandhigo marka qolyahaasi hala xisaabtameen oo aad iyo aad baan ugu boorinayaa in la soo galo fariisiyo lagula xisaabtamo heritage-na inay degdeg uga noqoto waxa kan oo inta ay waxaan arkayay shalay ninka la yiraahdo Cabdirashiid Xaashi isla sawiraya niman dhalinyaro ah oo aan ogahay xiriido dad bani inay ka dhaxeeyaan oo ka yimid deegaanka anigu aan ka imid Sool waxyaalaha layaab kale waxaa ka mid ah waxa ku jira dadkaas sida la sheegay inaan caynta Cabdiraxmaan caynta ay walaayiin oo uu leeyahay dadkii waxa weeyaan dhibsaday shirkii Jabuuti baan halkan kula qadeeyay marka waan isla afgaran hawshiina waan dhamaysanay haba ma aan dhamaysan kana hari mayno ilaa sharcigan wala tiigsanaynaa xisaabta iyo xukunkan way noo gelaysaa qolada baarlamaanka sidaas safaraya Soomaali guud ahaanna waxaan leeyahay Soomaalida midnimada laga shaqeeyo dadka reer koonfureedna waxaan leeyahay haddaydan noogu hiileen walaaltinimada iyo hawshan dawladda ee midnimada ayaan nagu ilaalinayna hawshii dawladda way waxaan u dhimanayna waxaan dadka deegaanada ay u baabaayaan ee wax walba u sheegayaan waa shaqadii qaranka ee ilaalahayd ilaalinta midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed taasaan ku dhimanaynaa ta markii dawladdii naga caawin lahayd ee shaqadan lahayd haddii iyada qabsan weyday haddii dadkii reer koonfureed ee midnimada ha wanaagsanay ay qabsan waayeen walaalayaal waxay isku codsanaynaa hanoo soo raacina oo hana dhibaataynina oo annagu waxaan idinka mudnayn iyo waxaan idinka geeyina anagana anagu qasbinayna gaarsiinida taana sidaas aan leeyahay Soomaaliya meel kasta waxaan rajaynayaa guul iyo midnimo waaye aad iyo aad u mahadsan yahay aqoon-yahan Maxamuud Ibraahim oo aad ugu waramayay hay'adda la yiraahdo heritage qaabka loo abuuray waxa ay qabato ficilladii dadbanaa iyo kii tooska ahaa ee Soomaalida lagu kala qaybinayay ka soo isbaxay shirkii lagu hayay dalka Jabuuti 2018-2019 iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed oo baaq dheer u jeediyay oo ku saabsan arrimahaasi inta ay ku soo gabagabeen waa dhagoolay